gudoomiye markuu ugu horeyso kusoo dhawow gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan ceelasha biyaha xuduudka ama suudiinta gobolka Banaadir iyo gobolkan Shabeellaha Hoose runtii farxad ay noo tahay inaan aragno maamulka gobolka Banaadir oo na soo booqanaya oo imaanaya gobolkan Shabeellaha Hoose annagoo iska kaashanayna isdhexgalka bulshada iyo amniga sidii loo horumarin lahaa sidaas la mid ah waxaan rabaa si guud ahaana shacabka Soomaaliyeed inaan ugu baaqo inay gacmaha isqabsadaan ay ka shaqeeyaan amniga wadankan wax ka burburay waa dawladnimo in dawladnimada la helana waxa asal u ah amniga in laga shaqeeyo waad ka warqabtaan wadankan qawaariij ayaa ka dagaalamaysa niman al-shabaab la yiraahdo waadan masaajidka uga badbaadaynin waadan wadada uga badbaadaynin waadan meheradaada ganacsiga uga badbaadaynin waadan guriga uga badbaadaynin meel walba oo qof bani aadina muslim ah uu ka nabadgali lahaa u diiday inay ku nabadgalaan caruurtaan dhaafaynin waayeelkaan dhaafaynin haweenkaan dhaafaynin dhalinyarada aan dhaafaynin dalkan oo runtii dal qurux badan ah ka dhigay dal mugdi ah oo suurad xumeeyay dadkii Soomaaliyeed ee muslimiinta ahaa iyo dalkaanba in la iska qabto inay isku biirsadaan taasna guusheeda kaliya waxaa lagu gaari karaa in la shaqeeyo ciidamada amniga annaga ka maamul gobol ahaan maamulkan gobolka Shabeellaha Hoose waxaan muddo fara badanba garab u ahayn aan la shaqeynaynay xarumooda ku dhiirigelinaynay ciidamada amniga ah tanna qayb ay ka mid tahay waana sii wadi doonaa haddii alla idmo quruxdan nalalkan shidan ee deegaankan ceelasha biyaha ee degmada Afgooy aan caaw ku wada joogno waxay ka turjumaysaa dadaalkii dhiigii howlkarnimadii daacadnimadii wadaniyadii ay ciidamada amniga ku bixiyeen la dagaalanka kooxdan qawaariijta oo deegaankan ka dhigtay saldhig weyn oo ay ummadda Soomaaliyeed ku dhibaan ummadda gobolkan Shabeellaha Hoose ay ku dhibaan ummadda gobolkan Banaadir ay ku dhibaan mas'uuliyiin iyo ciidan ay runtii wadadan ka mari waayeen ciidankaas ayaan bogaadinaynaa waa u hambalyeynayna intii ay shaqadaas ay wadeen wixii dhibaato ah ku gaaray haday dhimasho tahayna Allah u naxariisto haday dhaawac tahayna Ilaahay ha bogsiyo inta nool iyo annaga waxaan diyaar u nahay halkaas inaan ku dhiirigelino aan wada socono ilaa dalkan aan gaarsiino meel aan qawaariij lahayn ummadda Soomaaliyeed oo dhanna ay ugu nooshahay si nabadgelyo ah horumar leh wanaag leh sharaf leh muslimnimo leh oo adduunyada aakhiradaba ay noloshooda ay ayaga go'aan uga gaari karaan oo ay habeenii maalin ay cibaadeysan karaan ay shaqeysan karaan si wanaagna ay ugu noolaan karaan insha Allah ta'ala taas ayaa annaga noo go'aana ciidanka waxaan leenahay waxaad haysataan maamul deegaan oo diyaar u ah inuu idin la shaqeeyo har iyo habeen shacabka ku nool nawaaxigan ceelasha biyaha waxaan rabaa ayagana inaan ku dhiirigeliyo kooxdan argagixisada ah ee sii dhimanaysa aan biiraacino waxba kama harin shalay meeshay joogaan maanta ma joogaan duurkan iyo geedahan hoostoodii iyo meelahan wixii ku dhuudhuumaalaysanaya ciidanka soo wargeliya waxaan noo ballanaa dalkan Soomaalinimo lagu xoreyn karaa mooyaane qof kaligiisa haddii lagu haleeyo dalkan ma xorooba kooxdan qawaariijtan waxay ka talinaysaa mar walba ay ka shaqeynaysaa oo meelaha ay gabaadka ka helayso waxaa ka mid ah in maxay ahayd bulshada ay kala qaybiso ciidamada ay kala qaybiso maamulka ay kala qaybiso ummadda ay isku dhibaatayso si ay iyada ugu hesho meeshaas gabaad waxaan rabnaa inaan gabaad la siinin ciidanka la shaqeeyo maamulka la shaqeeyo intii yaroo dhimanoo nawaaxigan ku dhuumaalaysanaysa aan isdhaafino si deegaanada kale iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ay nimankan weli nolosha mugdiga ay ku hayaan aan uga gaarna haddii alla idmo sidaan uga dulqaadi lahayn